bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan wanaagsan idlahaan baddaawadayaal ku soo dhawaada warka warsida qodobada aan maanta idinku haynana warka waxaa qayb ka noqon doona shaki ka dhashay kulan qarsoodi ah oo dhaxmaray ra'iisul wasaarihii horeeyay dalka Khayre iyo Faad Yaasiin hadaba kulankaasi maxaa looga hadlay midowga murashaxiintana maxay ka yiraahdeen ayaan idin soo gudbin doonaa Muqdisho oo laga dhaqan galiyay go'aan ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya maamulada Jubbaland iyo Puntland waxay diideen inay yimaadaan Muqdisho iyaga oo muujiyay cabsi ay ka qabaan labadaasi maamul caasimada hadaba maxay tahay cabsidaasi ayaa sidoo kale aad daawan doontaan waxa sidoo kale aan idin haynaa dawladda Soomaaliya oo xayiraado ku soo rogtay shacabka xilli ay qaban qaabinayso barnaamij ka dhaca fagaaraha weyn ee daljirka dahsoon qodobadaas iyo qodobadii kale ee nagu soo kordho ayaa warka intaynu ku guda jirno saaxiibayaal aad daawan doontaan waa maalinimo Arbacada taariikhduna ay ku beegan tahay 3 bisha 3 sanada 2021 daawada hadii ay tahay markii kugu horeysay ee soo booqato janaalka fadlan subscribe noo saar oo taaba calaamada gambaleelka si markaasi ay ku soo gaaraan wararkii iyo warbixinadii ugu dambeeyay halkan aynu ku baahino mahadsanida aynu ku bilownay kulan qarsoodi ayaa la sheegay in uu dhaxmaray ra'iisul wasaarihii horeeyay dalka Xasan Cali Khayre iyo sidoo kale taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Faad Yaasiin xogo hoose oo aan ka helnay ayaa sheegaya in kulanka uu qarsoodi ahaa uu ku dhaxmaray magaalada Muqdisho taliyaha nabad sugidda Soomaaliya Faad Yaasiin Xaaji Daahir iyo ra'iisul wasaarihii horeeyay dalka haddana kamid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynimada Soomaaliya ee Xasan Cali Khayre kaasi oo salka ku hayo arrimo siyaasadeed sida ila xog ogaal ah oo inoogu waramay kulanka oo ka dhacay Hotel Paradise oo uu degan yahay musharax madaxweyne Xasan Cali Khayre ayaa wax labada dhinac kulankoodu uu ahaa mid albaabada ay u xiran yihiin waxaana naadir noqotay in laga helo xog rasmi ah oo kulanka Faad Yaasiin iyo Khayre ku saabsan kulankaasi intii uu socday balse warar aan la hubin ayaa sheegaya in Xasan Cali Khayre iyo Faad Yaasiin si gaar ah ay kaga wada hadleen xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo sidii looga gudbi lahaa marxaladda kala guurka wararka qaar ayaa sheegaya in Xasan Cali Khayre uu jismi ahaan midowga murashaxiinta uu kula joogo balse ay tubo xiriirsan tahay filla Soomaaliya sidoo kale Xasan Cali Khayre ayaa ah musharax qarsoon oo ku dhex dhuumanaya mucaaradka sida la sheegay kuwaasi oo si weyn u diidan hanaanka ay doorashadu u wato dawladda haatan uu hogaaminayo Farmaajo iyadoo ay xusud mudan tahay in Xasan Cali Khayre muddo 3 sano iyo bar ah uu qayb uu ka ahaa hanaanka ay nabadii nolol ay wax u wado musharax Xasan Cali Khayre ayaa kamid ahaa mas'uuliyiin iyagoo barnaamij nabadeed dhigaya lagu xabadeeyay agaarka garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ee aadan dhanka kale xubno ka tirsan midowga murashaxiinta oo aynu la hadalnay ayaa waxa ay sheegeen in ay ka walwalsan yihiin walaacna ay ka qabaan kulanka Faad Yaasiin iyo sidoo kale ku dhaxmaray Khayre Hotel Paradise oo ku yaala agaarka garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ila xogaal ayaa waxa ay noo sheegeen in midowga murashaxiinta ay si hoose uga tashanayaan go'aankii ay ka qaadan lahaayeen ra'iisul wasaarihii horeeyay dalka haddartaana kamid ah xubnaha midowga murashaxiinta Xasan Cali Khayre kaasi oo wararka aynu ka helayno ay sheegayaan in ay soo baxayaan xiriirada kala duwan oo muddooyinkii u dambeeyay uu la sameeyay xubnaha ka tirsan dawladda Soomaaliya ee filla Soomaaliya degan magaalada Muqdisho ayaa inta badan laga dareemayaa go'aankii xalay ka soo baxay dawladda Soomaaliya kaasi oo ku aadanaa in gabi ahaanba la joojiyo isku imaatinada sida waxbarashada iyo sidoo kale goobaha kale ay dadku isugu yimaadaan magaalada Muqdisho ayaa maanta waxa laga dareemayaa in dadka ay inta badan isticmaalayaan qalabka looga hortago xanuunka coronavirus oo gudaha Soomaaliya dib ugu soo laba kacleeyay dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay xalay sheegtay in si degdeg ah loogu baahan yahay in dadku ay isticmaalaan qalabyada kala duwan ee looga hortago xanuunka wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubbe oo xalay shir jaraa'id oo degdeg ah qabtay ayaa waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay gabi ahaanba muddo bil ah ay fasaxday shaqaalaha dawladda iyo sidoo kale guud ahaanba goobihii dadka isugu imaanayeen xafladaha aroosyada iyo sidoo kale goobaha waxbarashada ayuu wasiirku sheegay in dawladda Soomaaliya laga bilaabo xalay 6 saac ay xirnaan doonaan ilaa ay ka bilaabato bisha kale ee Abriil dawladda Soomaaliya ayaa go'aanka ka soo baxay waxa laga dareemayaa maanta gudaha caasimadda iyadoo dadku ay isticmaalayaan qalabyada kala duwan ee looga hortago xanuunka waxaana qaar kamid ah dadka isticmaalaya qalabyada ay sheegeen in ay u hoggaansameen amarka ka soo baxay dawladda Soomaaliya ee waqtigeedu u dhamaaday
waxaana sidoo kale jira in dowladda Soomaaliya ay qaban qaabinayso banaanbax weyn oo looga soo horjeedo hadalka ka soo baxay dowladda Soomaaliya ee ku aadan xayiraadaha lagu soo rogay guud ahaanba shacabka caasimadda Muqdisho iyo guud ahaanba shacabka ku sugan dalka ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli ay soo dhowdahay maalinta la qaban doono banaanbax weyn ee dowladda qaban qaabinayso kaasi oo looga soo horjeedo madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoo ay xusid mudan tahay in maalnimadii Isniinta ahayd kulan ay ku yeesheen hotel degal ee magaalada Muqdisho xubnaha midowga murashaxiinta iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Roble lagu go'aamiyay in sabdiga soo socda ay taariikhdu ay ku beegan tahay 6 bisha la qaban qaabiyo lana dhigo banaanbax weyn oo looga soo horjeedo dowladda uu hogaamiyay Farmaajo banaanbaxa ayaa ilaa iyo imika loogeen in uu noqon doono mid fashilmay iyo sidoo kale mid kale maadaama go'aanka xalay ka soo baxay dowladda Soomaaliya uu dhigayo in gabi ahaanba la joojiyo isu imaatinada walow dowladda Soomaaliya sidoo kale ay sheegtay in uu jiro isu imaatin habeen ka hor warqad ka soo baxday xafiiska madaxweynaha waqtiga uu ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada dalka si markaasi xal looga gaaro arrimaha doorashooyinka dalka haddaba labadaasi kulan ayaa shaki la gelinayaa in ay qabsoomi doonaan maadaama banaanbaxa iyo sidoo kale isu imaatinka madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo madaxweyne Farmaajo uu noqonayo hadii uu dhaco mid ka hor yimaado go'aanka ay dowladda ku dhawaaqday oo ah in isu imaatinada gabi ahaanba la hakiyay muddo bil ah go'aanka ka soo baxay dowladda ayaana caqabad ku noqon doona banaanbaxa iyo sidoo kale kulamada xalka looga gaarayo arrimaha doorashooyinka dalka qaybihii dhexe warka warsida ayaan ku guda jirnay markana dowlad goboleedyada Puntland iyo sidoo kale Jubbaland ayaa gabi ahaanba ka hor yimid shirkii uu dhawaan ku baaqay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha waqtiga uu ka dhamaaday dowlad goboleedka Jubbaland ayaa qoraal ka soo baxay waxa lagu sheegay in ay ka walaacsan tahay shirkaasi in ay ka qayb qaadato madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka waxa uu marka hore uu ku soo dhaweeyay shirka ay dowladda Soomaaliya isugu yeertay in magaalada Muqdisho la isugu yimaado si markaasi xal looga gaaro arrimaha doorashooyinka dalka waxa uu sheegay in maamulkiisa mar waliba uu diyaar u yahay in uu ka qayb qaato wada hadallada xalka looga gaarayo doorashooyinka dalka maamulka Jubbaland ayaa sidoo kale waxa uu ku baaqay in waqti la siiyo wada hadallada u socda midowga murashaxiinta iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta ee Roble qoraal uu bartiisa Twitter ka soo dhigay ayaa waxa uu ku yiri Axmed Madoobe dowladda Jubbaland waxay dhiirigelinaysaa qabtaana in la tabantaabiyo waqtina la siiyo hadallada u dhaxeeya Roble iyo sidoo kale midowga musharaxiinta waxay sidoo kale diyaar u tahay ka qaybgalka shir ka dhaca meel amnigeeda lagu kalsoon yahay gundhigiisuna uu yahay heshiiskii 17 Sebtembar hadalka ka soo baxay Jubbaland ayaa sidoo kale waxa saacado kadib markii uu Jubbaland warkaasi ka soo baxay dhanka maamulka Puntland iyadoo ay war ka soo saartay shirka uu ku baaqay madaxweynaha waqtiga uu ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dowlad goboleedka Puntland ayaa waxa ay walaac ka muujisay kulanka uu Farmaajo isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada dalka kaasi oo la sheegay in uu Muqdisho uu ka dhici doono qoraal ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa markii hore waxa lagu soo dhaweeyay kulanka Farmaajo uu isugu yeeray kaasi oo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka balse waxa ay Puntland ay walaac ka muujisay go'aanada iyo sidoo kale qoraalada ka soo baxaya xafiiska madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday qoraalka ayaa waxa lagu yiri ka soo baxay Puntland dowladda Puntland ee Soomaaliyeed waxay ka walaacsan tahay in madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu talaabooyin carqaladeynaya dadaalada xalka loogu raadinayo caqabadaha hortaagan ged socodka qabsoomida doorashada baarlamaanka iyo madaxweynaha Soomaaliya uu sameeyo waxa sidoo kale dowlad goboleedka Puntland ay si aad uga soo horjeegsatay in kulankan uu dhaco maadaama wada hadallo ay u socdaan midowga murashaxiinta iyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta ee Roble qoraalka ayaa sidoo kale lagu yiri dowlad goboleedka Puntland waxay u aragtaa dadaalada ay wadaan ra'iisul wasaare Roble iyo midowga murashaxiinta kuwa u gogol xaaraya jawi ay ku qabsoomi karaan shirar loo dhan yahay heshiisna lagu yahay sidoo kale dowlad goboleedka Puntland waxay cadeynaysaa in ay markasto diyaar ay u tahay ka qaybgalka shirka xalka loogu raadinayo qabsoomida doorasho heshiis lagu yahay taasi oo gundhigeedu uu yahay 17 Sebtembar heshiiskii Muqdisho hadalka ka soo baxay dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ayaa sidoo kale waxa ka horeeyay kadib markii shalay galinkii dambeeto ay kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho xubnaha midowga murashaxiinta ay ku diideen go'aanka ka soo baxay dowladda Soomaaliya ee ku aadan in shir la isugu yimaado magaalada Muqdisho siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo warbaahinta u aqriyay
kadib kulan ay magaalada muqdisho ay ku yeesheen gaar ahaan qalcadda ay degan yihiin midowga murashaxiinta ee hotel Jazeera waxa ay ku sheegeen war-saxaafadeedkooda in gabi ahaanba farmaajo uusan xaq u lahayn in uu isugu yeero xubnaha dowlad goboleedyada dalka si markaasi xal looga gaaro arrimaha doorashooyinka dalka. waxa uu sidoo kale siyaasi Cabdiraxmaan Cabshakuur uu sheegay in shirka uu ku baaqay farmaajo uu yahay mid carqaladaynayo kulan ay Khamiista ay ku balansan yihiin Rooble iyo sidoo kale xubnaha midowga murashaxiinta. guud ahaan saaxiibayaal waxaan intaas aynu ku soo gabagabaynaynaa war wixii dalka iyo daafaca caalamka naga soo gaaray. daawada haddii aad warka ka heshay fadlan subscribe noo saaro taaba calaamada gambaleelka si markaasi ay kuu soo gaaraan wararkii iyo warbixinadii ugu dambeeyay ee halkan aynu ku baahino mahadsanid.